daacado dibada ka iman oo dalkiisa iyo diintiisa jecel hal hagaajiyay سوداء كان يوم جان كان فرديا واسمعوني وطبعا كان كتير وغير الزمبيا تيجي كلهم تاني كاسوري من سوداء هذا يجعل كواحيان وحناني شرفي أنا كل سوداويو ودك الزمبيا ونصيبي يا شيء أنا كل سوداويني يا قلب فران أنا وأنا بقول ليا في الصومالية كان فرديا وحكرنا ما علينا أنت حكومة حفلة الماموس قاعد شرفت له كنت سؤال مقبلي حتى على المرسل سنة خير الله الصيام سوداوين بدنا يا مشكلة علينا حالي وبدنا وضعنا حفلة التنبيه يا أسبوع السنة السلام عليكم لكن وحكى لي سيدنا المقالة ومدحويني أو مسؤول يوري زامبيا وسوق قصدا إنه صوص على مدة كيسي وأنا متكد يا شاء هذا أنا فرح سنة كانت إني قبل أنا مسؤولي ما تو سفر حدث عن سوى سيدات كاغا يجعل كحيدو حيين أسلوب الماء وأنا بوصل لنا ليد فرحت iyo kalsooni badan aad gelisay adigu aad gashatay ayaa anoo kugu soo dhaweynaynaa madaxweyne soo dhawow si kalgacal iyo sharaf iyo farxad baa ku dhaantay waan kugu soo dhaweynaynaa waan ku ducaynaynaa sidaad noo karaamaysayna adna ilaahay ku karaameeyo xilka aad haysiyo meeqaanka aysa mid kasii sarreeyaan waan kugu ducaynaynaa dadkan oo dhanna waxaa u tahay modeel iyo siyaasiyiinta kale kafta badan baa ka dhacaya ilaa xalay ilaa maanta meesha la yiraahdo magaalada والله معني مدحوينه وحويان سياسيين meesha imanaysay waana ka diyaargaraysan waana ka naxibsan yahay dadkiisa iyo meesha uu boqorada inuu ku soo noqdo marka waan ku soo dhaweynaynaa madaxweyne soo dhawow badan wadana xafladna waa noo furan tahay ma sha Allah هذه وقتigaaga ku soo dhawaada qalb furan wadankan Zambia aynu degannahay marka waxaan idinka mahad celinaynaa oo maaragtay in badan maaragtay idinka mahad celinaynaa in aad noo timaadeen oo madaxweyne adigoo xil haya aad u soo maaragtay sida inaad dadkaaga halkan deganaa aad soo aragtay arrintaasi sharaf gaar ah iyo taariikh gaar ah oo aad kaga duwan tahay mas-uuliyiinta tirada badan oo Soomaaliya soo martay ama hadda haysa oo aad kaga duwan tahay weeye aad iyo aad u mahadsantahay iyadoo roobab aad ogtihiin safarkaas riskiga iyo khatarta uu leeyahay meel kasta la iskaga yimid waxaan leeyahay madaxweyne ku soo dhow dalka Zambia horena waa noogu timid haddana mar labaad baan soo dhaweynaynaa maslaxan waan keenaynaa insha Allah inaad noo imaan doontid hadalka waxaan u malaynayaa gadaal buu nooga dhiman yahay oo maalinta berita ah insha Allah اللي يريدوا هذا أنا حسن دياسوري أنا بديت هذا هو السؤال لا تاجروا شغل عدوان يو ممكن شغل عليه هيسوسي سومالي أردن لا ممكن أساسي يو لا تجتهدون وقت هذه لماذا أني يو هرمات وحرتينا أن هرمات أساسي هيسو أمور تقول شغلنا غير ممكن سومالي هرمود هذا جالية حياة المقطع الجورو يهدي في الجورو يهدي في الجورو إن سومالي هرمود أهاتو تلقوا نكور حياة هرمين تلقوا يبيروا الجوران كشقيا وركوا بليا حيوان قدنا إن شاء الله أي هذا مع التنفيذ تلقوا المرة بعد لنا دي الافتقار الصومالية للسفارات الشغالية مرو حوا حسن وفتي الحاكة أو وصل مدحوينها oo ugu horeeyay wasiirkeena iyo xildhibaanka ambassadorka iyo dhammaan waftiga la socda madaxweynaha injineer Cabdullaahi maxamed beeldaadshe raggaas oo dhammaantiin gacmo fara soo dhawaada soo dhaweynka bacdi
وإني محمدنا بمعنى كسر قيقين قصرتا وهم مصر يسولوينك من حولها دور دولتك صوماليا البنتلات إلى عبد الله دن أنا أقول الله يا مرعى فاملك علي حسن على مصر ومحمد وقضية وياهي يجبلها إنوديا يهوكا بروح ياسمين يدقاء حاو على مصر وكل يوم مع المصر وهوكا بروح إنو سوق البردي أنا أقول على النوع الله وحنكون بقينا سيدا أبو بصر الكسان وآد ممكن يميتان من حوالي سيد عبد الله دين waxaan ka codsanaynaa inuu korontodaas iyo dekada isku xiro si dhammaan ganacsatada hadda maxamed cali musal laba warshadood oo waaweyn buu leeyahay oo galayga ah madaxweyne siciid cabdillaahi deni wuxuu ahaa wafuuddii inoo imaan jirtay mid ka mid ah hadda ka hor markaa inoo yimi runtii wuxuu u tartamayey madaxweynenimadii soomaaliya oo xilligaas ma uusan helin laakiin dib wuxuu ugu tartamay madaxweynenimada hadda uu ku fadhiyo ee ah madaxweynenimada dowlad goboleedka puntland uguna helay hadda uu inoo yimi isagoo madaxweyneha waana shaksigii ugu horreeyey oo inta inoo yimaada reer zambia haddaynu nahay isagoo xilkii haya ina xasuustay oo ina ku soo laabtay waxaan leenahay mudane madaxweyne waana ku mahadsan tahay waana kaaga haynaa abaalkaa inaad na soo xasuusatay oo aad dib noogu soo sabilaabatay warku waxa uu u badanayaa oo madaxweynaha iyo dadka aadka u fara badan oo raba inay hadlaan habeenka soo socda ee axadda halkaan inaynu maanta ku qadayna keliya muunimi laakiin warku halkaasu imaanayaa dhammaan inta halkaan fadhida iyo inta kale oo laga yaabo inay maqasho waxaan ku wargelinaynaa inay kasoo qayb galaan shirka uu madaxweynuhu na kula hadli doono oo runtii taabanaya meelaha aad u fara badan oo la rabo inaynu inagoo oo dhan aynu dhegaysano khudbadda madaxweynaha iyo odayaasha kale oo kasoo qaybgelaya muhiim bay noo tahay dhalinyaro gabdho odayaal ganacsato taasaynu u diyaargaroobeynaa insha allah halkaasaynu ku sheekaysanaynaa ku hadlaynaa wixii war qabo oo dhanna warkooda lagaga boganayaa marka war badan ma jiro madaxweynaha laftigiisa khudbadiisu halkaasay u badan doontaa insha allah haddana waxaan kusoo dhaweynayaa marwo safiir xaawo maxamed xasan oo ay ubaahintay meesheeda loogu geeyay microfoonka maadaama halkaan ay aada u dheertahay wanaagay ku hagaagsan kusoo dhaweeyeen marka waa soomaalida oo dhan sida lagu sheegay sidaa oo la saxo shalaytaan waxaan ka hadlay waxaan ogeyn waxaa la dhihi jiray dib baa ma hadlay maxasuus waxay ahaydeen qofkaan uusan jirin markuu uusado qofkaan wejiga baa ku jira waxaan ogeynaa isku galay shalay waxaan islahaa ma soo qaadaya mar dambe laakiin ambarladan ka hadlaya waxaan islahaa qof baa ku jira ma oleynaan dadka tegaya marka raalina oo dadka ka tegay xaalado waxaan ka codsanayaa gabadhii noo buraanburtankaa taagay maasha allah buraanburkaaga codkaaga aada u qurux badan yahay birta noo soo badi buraanburka noo dheeraya marka waxaan kusoo dhaweynayaa madaxweynaha iyo kelmadiisa ka dhaho kadib waan qalaynaynaa waa inoo habeen dambe insha allah asalaamu calaykum safiiradda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dalka zambia hogeenka iyo shaqaalaha safaaradda gudoomiyaha jaaliyadda zambia hogeenkiisa iyo mas-uuliyiinta kale ganacsatada odayaasha gabdhaha iyo intaa kasoo qaybgashay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa maxamed cali musal faamilkiisa oo runtii martiqaadka quruxda badan maanta halkan lagu sameeyey waxaan aada ugu faraxsanahay safiiradda iyo jaaliyadda zambia ilaa shalay marxabeynta iyo soo dhaweynta ay noo sameeyeen anigii waftigeyga runtii waa wax annagana runtii farxadna gelinaysa xusuusnana gelinaysa dadka reer zambiyana sharaf u ah isku duubnida iyo wadajirka
iyo sida ay runtii ay u jecel yihiin inay mas-uuliyiintooda iyo dadkooda usoo bandhigaan. runtii waxaa iga muuqda waxaa saldhig u ah culimmadiina oo ilaa xalay iyo maanta kelmadaha ay jeedinayeen ka marakacaya inay mar walba nagu goorinayaan waxa wanaagga ay diinta islaamku qabto oo ugu muhiimsan tahay wada jirka iyo wada tashiga iyo wada socodka. tallaabada quruxda badan oo runtii reer Zambia waxaan rajeynaya in Soomaalida meel kastay joogto loo gudbiyo oo ay arkaan. ani farxad gaar ay ii tahay waayo haddaan madaxda soo booqan lama arko wanaagga deegaankaasi marka ama xil hayo inaan imaado waxay saameyn ku yeelan doontaa wanaagga reer Zambia dad badan ka qarsoonaa in aad looga arki doono Soomaalida kale meel kasta joogaan. waan idin rajeynayaa horumar dhinaca horumarka aad ka gaarteen dadnimadiina iyo iskuduubnidiina, kobaca dhaqaalaha aad sameynaysaan iyo la noolaanshaha bulshada aad la nooshihiin iyo sida wanaagsanad iyo sumcadda aad ku leeyihiin. marka hadalkaygu waa ii dhimayaa sida la sheegay, laakiin halka waxaa uu keliya kusoo gaabinayaa inaan inii mahadnaqo sida wanaagsan ee noo soo qaabisheen oo noo soo dhaweyseen. insha allah war aada u ballaaran oo dhinacyo badan taaban doona baan insha allah habeen dambe gaarsiin doonaa. waxaan ugu celinayaa waa Soomaali oo dhan dabcan inkastoo state mucayana madax u ahay laakiin haddana mas-uul Soomaaliyeed baa marka Soomaalida oo dhan baa udile haddaan stateskayga la hadlayo waa la joogi jiray xagga markaan la joogaa Puntland ale marka halka joogo Soomaali wey. Soomaali waa noo imid waa mahadsantihiin waana ku faraxsanahay runtii inaan meelo badanaan soo marmaray oo Soomaalida waan arkaa laakiin halka way ka duwan tahay. marka madaxda Soomaaliyeed ma ogaan jirin laakiin waan ogaayo horaan u arko saasaan u socdo marka cid badan oo ii timaad waa arki doontaa maalmadooda. markan inagu soo bato oranina waan lagu batay oo martaqaadyada hayareynina. asalaamu calaykum waraxmatullahi.